si degdeg ahna laga soo gaaro haddii kale sharciga gacanteedaan ku qaadanaynaay hana la ogaado dee oo dawladdu hana ogaato oo waxaan ku uri hadhow yaan la soo caban oo hadhow yaan la soo fargelin gacanteedaan sharciga ku qaadan waa burburinaynaa hana la soo gaaro cid baan aan waji ka rabin cid wax noo qabanaysaan jirin sharcina laga soo gaaro hana laga soo gaaro la soo gaaro aniga tirisoo la soo kala gaaro hana la soo kala gaaro dhibaatada inta leeg ee ummadda inta leeg ka kacayso ee dib ugu sugalay dadku ay mudaharaadeen dhexanta la taageen inay jooga sharcigeenu maraynaay ayaan dadka ku fariisanayaan ku wacyigelin in waxna laga qabto abashooyinkiyaga sida ugu dhaqsaa badan loo aqbalo ilaa madaxweynaha ilaa barasaabka gobolka ilaa cidii kasta arrintan qusayso waxa uu leenahay si degdeg ah arrinta waxna looga qabto anigu musulmada adiya waxaan halkan kaliya ugu duubaynaa mushkilada xaafadan ka taagan ee dhibaatada ay ka cabanayaan dadweynaha iyagana oo dhabay in taawurka laga taagayo halisaha badan ee uu leeyahay weyn ogni waxa weeye haday faaligtay haday ilma afrutay haday qof waayeelo jilicsan tahay intaba dhibaatooyinku ku hayay iyo dhaqaatiirta waxa yaala waynu wadoogna iyadoo aanay sababin meel taawur ay sabab keenaysa aanu garan weyno kuwii kale ay noo jiraan hal kilomitir oo waxla ay xaggan iyo xaggan naga xigaan maanta waxa leenahay kan weyn laga soo dhex taagayay guryaha dushoodiya wakaa waa inta sidii guryo marka laga guriyay wakaa waxa weeye waxaan leenahay iyadoo aan dhibaato keenin waxaan u abanay noo systemkii sharciga hab qabeedkii sharciga raacayna saldhigaanu geynay waraaqa waaxda macallin Harun xukutaan geynay waxaanu geynay adiib ku soo ogolyahay wasaaradda tiknoolajiyadda isgaarsiinta oo agaasimiye wasiiradii u gudbinay waxaanu geynay barasaabkii gobolka gudoomiyaha nabadgelyada intaba abashadii aanu geynay wali wax allaale wax looga soo qabtay in lagu soo jawaabay ma jiro waxa dhacday maalintii ugu horeysay bilaabeen habeenimada waa la bilaabay jimcaha subaxiiba galabtii baan xidhnay taliye qabeed baa markii soo siiyay maxaa loo soo xidhay moorni amar lagu sii daayay dhibaatada inta leeg ee ummadda inta leeg ka kacayso ee dib ugu sugalay dadku ay mudaharaadeen dhexanta la taageen inay jooga sharcigeenu maraynaay ayaan dadka ku fariisanayaan ku wacyigelin in waxna laga qabto abashooyinkiyaga sida ugu dhaqsaa badan loo aqbalo ilaa madaxweynaha ilaa barasaabka gobolka ilaa cidii kasta arrintan qusayso waxa uu leenahay si degdeg ah arrinta waxna looga qabto oo in maadareelha laga joojiyo baahi keenaysa in laga taaga miigino hal kilomitir oo wax la beeran laga wada xigaan waxaanu noqonay nin cidii wax yeeshay u cabanaya baan noqonay markaan wasaaradda isgaarsiinta oo kala aan tagnay yaa dhawaa kugu yaal halkii aad ka dheelayd haw caban dhibgeystii ayaanu noqonay horta marka waxa uu leenahay si aad iyo u dhaqsaa badan leh lagu soo jawaabo waxa looga qabto waxa laga joojiyay maadareelha ummadda inta leeg baanu lay 1500 qoys kama yara inta halka imika leeg isku wada xaafada balan baa ka banaan way wada dhisantay war meelaha koonayaasha in magaalada looga saaro oo la eega ummadan ku nool meesha iyo dantu shakhsiga meesha wax ka taagan yahay leeyahay in la miisaamo la eego yaan ciidanka mas'uulka haday isgaarsiinta tahay haday wasiirka caafimaadka tahay mid kasta waa arrin qusayso weey waa shacabkii Soomaaliland dheertii weey hal shakhsi baa loo deyn loo tixgeliyo maaha tanta uu isagu leeyahay oo intaas dad caafimaadkooda lagu guuro maanta waxa weeyaan cabasho in badan soo socotay waxaanu dhibano u nahay shirkadda Telesom oo taawarka aad arkaysaan xaafadda ka taagtay dhawaan iyadoo markii hore lagu sheegay gurigeenu yahay guri maxay hadayaan dhisma caadi oo rayda lagu sheegay haddana muu noqon dacwadda waxaanu geynay saldhiga dhexe laamaha amniga ay khusayso gudoomiyaha gobolkan u geynay isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda la socodsiinay waxa wax laga qabtay ma jirto taawarkan sharci darra lagu dhisay sharciyad laguma dhisin aanu gaarsiinayna cid kasta oo ay khusayso inay taawarkan laga qabato uu socdaa dhismihiisu u socdaa markii aanu joojinay aanu xidhnay ee aanu geynay saldhiga geynay ee la xidhay wax amar baa lagu siday meel sare ka yimi amar meel sare ka yimi ayaa waxa weeyaan ayaa lagu siday waxa weeyaan dalku hadii aan la isku tanaasulin hadii aan waxa weeyaan dadka masaakiinta iyo dadka jilicsan aan la eegin oo loo shaqeeyo dad waxa weeyaan maxay hadayaan hantiilayaasha afarta shirkado dalka waxa weeyaan mushkiladeeda leedahay waxaanu gaarsiinaa cid kasta oo qusayso taawarkaasi halis buu ku yahay xaafadda
waxaa taawarka ugu dhowi 1 kiiloomitir ku dhowiye Telesom leedahay awood ayay ku dhistay taawarka halka ka taagan ayaan ka hadlaynaa odayaashii xaafadaanna waxbana lagama weydiin waxaan leenahay haddii dawladdu jirto haddii ciddii ku shuqul leh أو عدي كل شغل له أرنكا أنا لقى وأنا كعصرني ما أنت وضياش حافظ عندنا ما مقنا أنا لقى قبته يا أنا قعنت هذا شرعي أنت أنا قعنت هذا كوق هذا أنا لقى سوق قالوا وأنا السوق اللي قال أنا لقى تاوركا مرة بنطي للصوم مرة بنط تاور اللي لقيت نحتاجه مرة بنوع عن كل مشكلة ما نخلها عرورت يدي وعن وياك يجي وح يجيبه وحنوص عليا وحن عدي waxaan ku baadhan ma laha cid faafreeb ma jirto cid dawladda waxaan ku wax ka qabataa ma jirto shicibka iyo waxaan ku cid wax u tartaa ma jirto hana laga qabto waan ku xasanay maanta bahalkaasi dawladda aan la hadlaynaa cidii allaala cidii ku shuqulay abniga baan ka hadlaynaa cidii waxaan ku shuqulay xaafadda macallin Haaruun waxa cid kasta waan u cabanay waan laga hoos qaadi waay hana laga qabto مشكلة ما نخليه سيدك دقاهنا نقصه قال هذيك أنا شرعك عن تيار أنا خوق هذا الناي هنا لو قاعد دي ودورده هنا لو قاعد أو هقولي هذا ويا الله صاع عني أو هذا ويا الله صفر قلني كعن تيار الشرع خوق هذا وبربريننا هنا لسوق قالوا عد بعنا وش كربين عدوا هنا قبل سانشرين شعب بانشرين كل دقان بانشرين دولة هو سانشرين وهقول واحد بانشرين وهقول سلك بانشرين هنا لقى سوق قالوا هنا لقى سوق قالوا سوق قالوا أنا قلت لي سوق أنا سوق قالوا هنا سوق قالوا كعبنا تاور كاسو marka hore la lagu soo galiyay guri baa laga dhisaya intaan meesha waxaan ku maqlay taawar baa laga dhisay bali ayuu siishkan nimanka gelinayo guri baan ka dhisanaa taawar maaha aakhirtaakii markii ay gurigii ay seesayeen intii taawarka reebeen tara taawarkii ayaa markii daba cadaaday oo imaka waa ka wadka arkayo waa laga dhisay odayaasha xaafadda ayaanu inteeda meesha joogtay iyo deyn kala maqaniba marka cabasho badan ayaan meesha ka soo damushinay dawladda u sheegnay in hawa halka muus sheegay inta muus kugu sheegay agaasima iyo saldhig iyo waaxba waan u sheegnay iyo maxaa takale bada saaba marka waxaan doonaynaa anagu inta u sheegnay wax la laga qabtay aanu jirin in taawarkan laga qabto caafimaad darra ayuu leeyahay dhibaato badan buu keenayaa كان مسلمها ورقد وحي halka ka yimaada anaga qabnaa ma orano horaba kada uga badhicin الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد waxa weeye meesharu waxa weeye malcaamad xaafad weeye aqlaydo wada kuwa waxa la yahay urta imkaan taageer ka soo dareereen waa malcaamada waa masaajid ummad saasa u tuban tahay anagu inta naga joojiyaan lahayn waana la aqbali waayay hadii laga markii la yiraahdo waxa lagu sheegay guri kale oo caadi ah markii aanu ka wada tagnayna way dhisay arrinka tuuga lagu dhisay anagu ma aan ogolayn dadweynuhu ma ogolayn qasab baa lagu dhisay qiyaamaha lagu dhisay waxaanu leenahay dadweyne caafimaadkiisa iyo carruurta caafimaadkeeda iyo ummadda caafimaadkeeda iyo nabadgelyada la ilaaliyo hadii la ilaalin waayo taan wixii la dhashay ku malhin